ku beerista dhirta deegaanada miyiga ah ee aan lahayn geedaha waaweyn oo ay harsadaan dadka iyo dunyada ayaa ku dhawaad 7 sano ee la soo dhaafay laga sameeyay deegaano hoos yimaada degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud. waxaa muuqata in horumar laga sameeyay haddana ay dadku harsanayaan geeda deegaanka lagu beeray. annu meeshii aan joogno waa meel hadii lagu madaxu timuu leeyahay bidaar ayaa lagu qaymeyn karaa. laakiin ilaahay waa nagu nooleystay waa nagu anfacay. waxaan loo arki karnaa hadii markii hoos kala arkay maxay horan joognay dad intoo kala camal inaan ahayn maanta dad nool oo hoos harsanaya oo hawo u dilaacday oo ku fahmaystay oo ama ku quraama dhigtay ama dilku inay xaaskiisa ilmuhu u noolaadanahay ama musun kula harsanhayo markii aadan ugu noolaanay aadan u bogaadinayna hadeertaan in loo soo badiyo dalkan taxadiran u baahanaa dilahaydna. waa mashruuc soo bilowday sanadkii 2012 looguna talagalay in sanad kasta lagu beero 5,000 oo geed oo noocyo kala duwan ah sida uu goobjoog u sheegay wasiirkii hore ee dastuurka Galmudug ahna gudoomiyaha ururka SSDA ee mashruucan gacanta ku haya Cusmaan Cali Socdaal. maanta runtii waxaa farxad noo ah inaan soo booqanay deegaanka miyiga Habaasley taasoo aan ujeedadiisu aan u nimid ahaa mashruuca daryeelka deegaanka ama mashruuca saxansaxo oo muddo 7 sano hadda deegaanka ka socday. ujeedada halkan aan u nimid waxay ahayd inaan bal dib u baarno oo dib u ogaano dhirtii hore loo qaybiyay oo mashruuca saxansaxo lagu qaybiyay dadka miyiga la siiyay qolo walba oo qof kastoo miyiga aan siinay sidoo uga faa'iideystay. waxaan aad ugu faraxsanahay halkan saaxiibkan macalinka oo hadda aan la joogno oo dadkii maaragtay reemiga ahaa oo qaatay geedaha ahaa geedkan hadda maanta aan harsanayna uu kamid yahay. ujeedada laga leeyahay waxa weeye dalkan aan joogno dhulkeena aad ogtihiin oo dhirta ay ku ka dhamaatay in dib loo dhireeyo oo dadka ma taqaana deegaanka oo reemiga oo xoolaha leh in lagu baraarujiyo inay muxuu ahaa dhirta ay daryeelaan berinka ay joogaan inay geedaha isa ka jarin laakiin geedaha ay ku beeraan hadafka mashruuca sidaas oo ahaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii in deegaanka Habaasley aad iyo aad u shaqeeyeen oo iyagu ay sameeyeen ma taqaana guryahoodii iyo bakradooda ay ku beereen geedaha. marka waa ku faraxsanahay aad iyo aadna waxaan u rajaynaynaa in ay iska bedeli doonaan waqtiga soo socda. si bilaash ah ama lacag la'aan ah ayaa dadka lagu qaybiyaa waxaana lagu geeyaa goobaha ay ku sugan yihiin. waajibaadka saaran qofka geedkan la siiyo ayaa ah inuu beero xanaaneeyo inta uu ka korayo geedka la siiyo sida uu sharxayo Cabdinuur Cumar Maxamed oo ka tirsan NGO-ga Taardo oo mashruucan fuliya. anaga geedka ayaan beernaa meeshii aan isniraahno meeshan geedaba u baahan tahay ayaan geynaa si free ah ayaan ku geynaa oo maxaa la dhahaa dadkaas deegaanka waxaan ku siinaa geedkiisii oo maxaa la dhahaa lacag la'aan aan ku siinaa kaliya waxa saaran ninka aan geedka siinayno muhiimadda saaran ama si waajibaadka saaran waxa waaye geedkan inuu ilaaliyo waraabiyo barbaariyo maxaa la dhahaa uu ka celiyo xoolaha iyo dadka uu ka celsho. sidoo kale geedku inta uu yar yahay preparation uu baahan yahay inuu soo diyaariyo macnaha maxaa la dhahaa ilaa koritaankiisa uu ka gaarayo ka noqonayo geed la harsado uu ka noqonayo. waxa ku gees socota geed kasta oo qoyan oo ku yaala deegaankeena inaan la jarinin oo maxaa la dhahaa aan loo isticmaalin inaan anaga geedka aan jarno halkii bedelkii geed la jari lahaa inaan tusaale ahaan anagu aanba meeshan geedka jar lahayn in nin kasta oo deegaanka degan oo reemiye ah ama reer magaal ah in uu geed beero deegaankeena oo halkaas ugu soo kordhiyo maxaa la dhahaa dhirtii uu ku soo kordhiyo. wacyigelin ku saabsan sida ay dadku u xanaaneyn karaan geedaha ayaa la siiyaa marka loo qaybinayo dadka tuulooyinka ku nool ee reemiyiga ah. Cabdirasaaq Al Cadaala, warbaahinta Goobjoog, magaalada Cadaado.